Caruus la dilay xilli la joogay xafladda arooskiisa iyo farxaddii oo murugo isku beddeshay. Si aan uga galno dhacdadan, walaal waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan, share garayso si saaxiibo badan u gaaro, sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Cali Aadan. mahadsanid in badan. Dhacdo argagax iyo murugo badan reebtay ayaa ka dhacday dalka Suudaan kadib markii nin caruus ahaa ama aroos ahaa uu si lama filaan ah ugu geeriyooday goobtii ay ka socotay xafladda arooskiisa iyo dabaaldegga arooska. Ninka caruuska ah ayaa xilli uu u dabaaldegayay arooskiisa waxaa ku dhacday xabad wiifta ahayd oo ay saaxiibadiis kula dabaaldegayeen arooskiisa, waxaana markiiba goobta arooska ka socday ay isku beddeshay murugo kadib markii xabadda wiiftada ahaa ee ku dhacday ninkii caruuska ahaa oo loo dabaaldegayay isla markaana doonayay in uu yagleelo guri cusub. Dhacdadaasi waxay ka dhacday xaafadda Al-Shacdiyaan ee degmada Al-Daamar ee gobolka Webiga Niil ee dalkaasi Suudaan, waxaana caruuska oo markii hore dhaawacmay uu u geeriyooday xabaddii wiiftada ahayd inta aan loo qaadin isbitaal, isagoo ku geeriyooday halkii ay xabaddu kula dhacday. Goobtii xafladda aroosku ka socotay ayaana noqotay meel lagu kala cararay, dadkii xafladda iyo farxadda u joogayna ay isku beddeleen kuwo ooynaya oo murugoonaya, halka haweeneyda arooska ahayd iyaduna xaalad kale oo murugo ah ay gashay maadaama halkaasi uu ku geeriyooday ama horteedaba uu ku geeriyooday ninkii ay doonaysay in ay nolosha la qaybsato isla markaana ay guurka wada yagleeleen. Dhinaca kale, booliiska degmada waxay soo rogeen go'aano lagu mamnuucayo in munaasabadaha arooska la rido rasaasta dabaaldegga aroosyada qoysaska cusub ee la galbinayo. Waxa ayna guud ahaan deegaankaasi ka mamnuuceen in xilliga arooska marka la joogo in xabado loo rido qoyska cusub ee markaasi la yagleelayo, isla markaana ciddii falkaasi ku kacda ay xiri doonaan. Dalkeena Soomaaliya ayaa iyana degmooyinka qaar, tuulooyinka iyo baadiyaha xilliyada arooska, gaar ahaan marka ninka guriga la geynayo, waxaa laga dul ridaa rasaas badan oo loogu dabaaldegayo arooska, taasi oo naftooda mararka qaar halis gelisa. Dhacdadan ayaana aad waxaa looga hadal hayaa baraha bulshada ee dalka Suudaan iyo guud ahaan caalamka, iyadoo ay aad uga argagaxeen isla markaana ay dadku aad uga naxeen kadib markii ay arkeen dhacdadaasi, isla markaana aad loogu hadal hayo baraha bulshada. Nin xilli uu guursanayay amaba habeenkiisii koowaad ee aqal-galka oo uu aroos dhiganayay in uu ku geeriyoodo xabad lagu dabaaldegayay.